madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenno xildhibaano iyo agaasimayaal guud oo ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaadhay gobolka Awdal. madaxweynuhu waxa uu xadhiga ka jaray laba wado oo isugu jira mid 4 kiiloomitir ah oo ay xukuumaddu dhistay iyo mid 8 kiiloomitir oo hay'adda horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salale Asarda ay dhistay. sidaas oo kale madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay wado 6 kiiloomitir ah oo ay xukuumaddu hirgelin doonto. Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaari Muumin Jaamac Soomaali oo kamid ah howlwadeennada hay'adda Asarda ayaa waxa ay ka warameen howlaha ay qabteen. gobolkan kulay jaxada qowbiyo haysta saddex shaqo kala lahaa jaxada bari wadadeedii weynay oo wadnaa insha Allah way dhamaan laakiin jaxada waqooyi iyo jaxada galbeed sida taasi tahay si kaliya deegayn way Soomaaliland hadayna ixtiraamkeenu aanu noqono iyo macdan iyo wax walba way jirtaan أنجمع إسكابسون ومسلمين عارحين ده هنا وينوبا كين تطبيعنا وينويهم. وعنكوها إن البجالين وعنكوها إن البجالين إنه أولاً كلهم قريسة فكرة دي الرجالين ده حكومة العائلات الطي. إنه الرجال يسوي ودوري إنه قريسة وحنو قال يسوي 4 كيلومتر وما تدرى ماله الله فري. فرحنا وحنو هذا إن عتيه شعب يسوي السود على 6 كيلومتر بوسوسية وهذا هو حامر ياي. بالإحترام عن قدرنا وإنه ذي maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bilay iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa iyaguna tilmaamay in arrintani farxad u tahay oo reer Booramana ama reer Awdalna farxad u ah inuu kala qayb qaato oo uu xariga uga jaro wado cusub oo ay xukuumaddu balan qaaday dhismaheeda ayna dhamaystirtay iyo dhigista 6 kiiloomitir oo cusub oo hadda inta dhimana madaxweyne waxaan doonaynaa inaad wax ka qabato adoo mar walba hamigaaga ku jiro inaad noogu darto inta dhimana inaad wax ka qabato. wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu tilmaamay wadooyinka maanta inuu hor yaala ama aan wax ka qabanay Boorame Wajaale Oodweyne wadada cad Salaxley Balugudle wadada Tabco iyo Hadiimi inta soo meelood oo taceelgaaba ugu weyntahay yaa ina sugayeen waxaan wax ka qabanay iyo waxaan wadno hadda aan taladeedii iyadana hayno baan ku jiraa wax la qabto wada ugu culus madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isaguna la hadlay dadweynaha ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta waxa wadada ila Boorame 4 kiiloomitir furo inta hadayna aan mustaqbalka insha Allah miisaaniyada la soo socotana way ugu jirtaa iyadana waxaan ku noqon doonaa insha Allah ta'ala iyadana maxaa qoyna aan mar walba ogaano dadkeenu ma aha mid awoodiisa meel walba gaarsiisan tahay oo cid walba waxay gobolada iyo degmooyinka u baahan yihiin oo dhan wada gaarsiin karta oo qaban karta maaha laakiin dadaal baynu geysanaynaa waxaa inoo badanaa in dadweynahayna iyo dawladdeenu meelay joogaba wada shaqeeyaan nabadgelyada ka wada shaqeeyaan midnimada ka wada shaqeeyaan jiritaanka Soomaaliya ka wada shaqeeyaan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo mid walba ay ka shaqeeyaan. dhinaca kale isla maanta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xubnaha wasiirada ah ee safarkiisa ku weelinaya ay kulan la qaateen odayaasha dhaqanka ee gobolada Awdal iyo Salala. Sultaan Saleebaan Cali Ismaaciil oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee goboladan ayaa waxa uu ugu horeyntiiba carabka ku dhuftay gobolkan Awdal iyo Salala wadda sida isku haysta cadaaladda intaad eegto waxba dantiisa ma doonta dadkaas dantiisa uma socdo dadkaas sidaasoo isku haystaa cadaaladda intaad eegto dadkaa dantiisa u xaqso dantiisa ilaali. sheekh beledka magaalada Boorama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaari ayaa isaguna madaxweynaha ku dardaaray inuu ka fogaado cadaalad darrada. madaxweyne cadaalad الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. دولتنا هو كل جزء كرتا أو يكون هناك كرتا سوى قف قال يعني دولتنا هو هيسكر هذا عدالة صحيح. لكن هذا عدالة يوم ويبقى بسنان كرتا خاصي وأوضح.
sidaas oo kale ayaa suldaan ibraahim jaamac samatar suldaan cabdiraxmaan jaamac dhawal suldaan ibraahim dacar iyo suldaan cabdi daahir gaboobe ayaguna tilmaameen arrimo dhowr ah oo ay madaxweynaha uga fadhiyaan inuu wax ka qabto waxa jiray ilaa imika meelo fara badan oo maaragtay weli abaarti ka jirto oo degmooyinka lughaya ilaa sayla way abaartiba weli ka jirta dadkii aad iyo aad bay u dareeysan yihiin hukuumadduna dadaalkeeda way muujisay halkaana madaxweyne waxaan leenahay dhib baa ka jirtay yaan la wada moodin in roobkii dhulka ka wada daay weli baa jira tabashooyinkeena si aad nooga qanciso ama aad wax noogu siiso inaad nala kulantaan u baahannahay madaxweyne ayaga waa qodobka kala tagtaankaa weeye waa qodobka aan doonayno in waqti ballaadho lana siiyo oonu xukuumadku inagula kulanno oon arrintaa iyada aad u qaadaadhigno oo guri hoostii iyo miis dushii aynu ku magaranaysaa wixii qaldan aan ku saxno hadday saxan tahay gobollada awdal iyo salil ha la mid noqdaan gobollada somalilan hadday wado tahay iyo hadday airport tahay iyo hadday deshada tahayba ha la mid noqdaan baan leeyahay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta jamhuuriyadda somalilan mudane axmed cabdi xaabsade ayaa isaguna carabka ku dhuftay anugu waxaan taagnahay soomaaliya waynu kala tagnay waynu kala qoonay waynu kala guranay waxaynu isku lahayn marka maanta ciddii u hangal taagta cillay muxuu ahaa hadisa cilla yay ku hambaasaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo oo isaguna la hadlay odayaasha dhaqanka ee gobollada awdal iyo salal ayaa waxa uu yidhi waxa aan aad iyo aad idinku ballan qaadaya anigu kolley ama halkaan isugu nimaadno ama aan isugu nimaadno xaruntii qaranka isugu nimaadno codsiga aad soo jeediseen ee inaynu ballanno iyo inaynu isu nimaadno mid walba waanu qorahay mar walba iyo goor kastaba diyaar baanu waajibka qaran ee madaxweynenimo ee xilka qaranka iga saaran baa ifaraya cabdulla cali yuusuf hon cable TV magaalada Boorama